xoghayaha guud ee golaha guurtida Soomaaliland Garyaqaan Cabdinaasir Aadan Beegsi ayaa maanta soo xiray tababar ku saabsan sidii loola shaqeyn lahaa gudiyada kala duwan ee golaha guurtida Soomaaliland iyo sidii loo kaydin lahaa xogta golaha guurtida. Tababarkan oo socday muddo 2 cisho ayaa waxa ka soo qayb galay guud ahaan shaqaalaha kala duwan ee waxyaha golaha guurtida Soomaaliland. Waxaana tababarkani golaha guurtida ka taageertay hay'adda UNDP. Sidoo kale xoghayaha guud ee golaha guurtida Soomaaliland Garyaqaan Cabdinaasir Aadan Beegsi waxa uu sheegay in shaqada ay hayaan ay tahay mid ka muuqata golaha guurtida Soomaaliland. Waxaana uu tilmaamay in shaqo wanaaggaasi ay suurtagelisay tababarada kala duwan ee la siinayo shaqaalaha ka hawlgala golaha guurtida. Isagoo arrimahaasi si faahfaahsan uga hadlayana waxa uu yiri aad baan idinku mahadnaqayaa ka soo qaybgalayaashan tababarkan ku saabsan sidii gudiyada loola shaqeyn lahaa ee aqoonta shaqaalaha iyagoo aqoon leh kor loogu sii qaadi lahaa sida xirfadooda qaabka qorista xogaha iyo sidii xogta loo record gareyn lahaa loo xafidi lahaa sidii la idinku tababari lahaa hadii la haydo waxaa jirta baarlamaanada sida yihiin caalamkuba oo inaguna la mid nahay shaqaaluhu waa laf dhabarta hawsha qabata mudanayaashu inta badan golaha waxay yimaadaan marka codka la sameeyo hadii la haydo arrinta la soo ururiyo cidda soo jilcisa ee ka soo shaqeysa ku soo dhabar jabta soo diyaarisa waa shaqaalaha baarlamaanna horumar ma gaaro ama qaranna horumar ma gaaro haddaan shaqaalihiisu xirfad wanaagsan iyo aqoon wanaagsan aan leeyahay waa ku mahadnaqayaa aadna waan u soo dhaweynaynaa professorka khabiirka Mukhtaar Maydane ee bixinayay dhowr cisho training-ka sida wanaagsan ay uga faa'iideysateen ee la arkayo doodihiina iyo araadiina soo jeedinaysaan khibradda ka kororsateen maadaama idinku waa aragnimo hore markii hore balaha waxa kale oo aad ugu mahadnaqayaa xoghayaha ku-xigeenka golaha guurtida Umar Maxamed Faarax oo aan rugcada way aragnaa muddo dheer dhowr sanadoodna golaha joogay way aragnimadiisina ay kala qayb qaatay muddadii maalmaha ay joogteen ahaydna barnaamijkani maskaxiye ay ka dambeeyeen dhammaan agaasimayaasha golaha iyo xoghayaha ku-xigeenkuba iyagoo isla kaashaday in aqoonta golaha halkii laga sii wado barnaamijkii dib u habeynta baarlamaanka shaqaalihiisa la sii joogteeyo aad baan ugu mahadnaqayaa isna ku-xigeenka xoghayaha oo hawsha idin dhabar adeegay fikradii cidii ay ka yimaadeen ka mid ahaa hawshaas waynu u mahadnaqaynaa waxaynu leenahay shaqada aynu haynaa way ka muuqataa baarlamaanka maanta ama golaha guurtida way ka muuqataa waayo tababaro badan oo barnaamijka dib u habeynta baarlamaanka ama golaha aynu sameynay aynu wadnay way ka muuqataa taasoo la sii joogteeyo iyo qarankeenu ku tusqaadi kara waxa jirta oo xasuusantiin inay doorashooyin lagu soo fooleeyeen isbedel ku iman doona hadii la haydaa baarlamaanka oo doorashooyinku haday dhacaan baarlamaan cusub iman doono taana la doonayo tababaradeenna aynu qaadanayna faraha badan leh mustaqbalka baarlamaanku sidoo noqon lahaa inaad noqotaan mudanayaasha cusub ee aqoon u lahayn qaabka baarlamaanku inuu u shaqeeyo inaad hagtaan aqoonteedina waa leedii waana wadaynaa waana idin ka muuqataa aad baan idinku mahadnaqayaa mar labaad waxaan leeyahay tababarkii aynu wadnay maanta oo dhowr cisho aynu soo wadnay wuu inoo xirmayaa laakiin se xirmi maayaan hawlihii dib u habeynta baarlamaanka iyo dhanka kale Aadan Cumar Xuseen kana mid ah waaxda hadal qoraalka golaha guurtida Soomaaliland ayaa ka dareen celiyay waxyaabihii ay ka barteen muddadii uu tababarkan u socday waxaanu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore aad bay wada mahadsan yihiin ka soo qaybgalayaasha iyo shir gudoonkii golaheena guurtida oo la joogo macalinka sida fiican tababarka inoo soo bareeyay agaasimihii balaaninka golaha guurtida isagoo hawshan inaga iyo cidii qabanaysay iyo isku keen xidhay xaqiiqatan inagu maadaama nahay shaqaalihii golaha guurtida hawsha ugu badan ee aynu qabanaa waxa weeye wahan saarkana ma waa hadal qoraal oo hoolka gudihiisa haday noqoto marka gudiyadii la raaco waxeena ugu badan waxa weeye macni waa hadal qoraalka iyo warbixinaha aynu ka soo saareen xaqiiqatan intii aynu dhiganaynay ee macalinkan inoo facilitate gareynayay maanta waxaynu nahay dad wax badan wixii ay hayeen loogu sii daray waxaan adduunka ugu fiican Soomaalidu waxay tiraahdaa cid wax ku siisa waad heshaa laakiin cid wax ku sheegta meeshi
dhammaanteen waynu wada naqaanay sida wax loo qoro sida warbixin loo diyaariyo laakiin maanta waxaynu ku guulaysanay cilmigii aynu haynay in laynoo sii ballaariyo oo aynu qaabkii hadal qoraalka aynu u diyaarsanaynay qaabkii aynu warbixinta aynu u qorinay qaabkii xeerarka laftirkooda aynu iyagana iskugu soo dubaridi lahayn hadday wax ka bedeliya kaabista markii aynu xog hayma ahaan aynu la shaqaynayno guddiyada loo xil saaray maanta tababar buuxaynu haysanaa alxamdulilah rabbil caalamiin aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo macnii soo daadihisay oo ama hawshan UNDP ayaa inoo facilitate garaysay golaheena guurtidana aad baan ugu mahadnaqayaa wuxuu baan odhan lahaa shaqaalaha iyo aan ku boorin lahaa war maanta cilmi baynu helay oo waxeenniba wax laynugu daray waxaaga wax loogu daray wax ka wanaagsan ma jiraan cilmigii aynu haynay aynu xog hayma ahaan aynu haynaynu haddaynu guddi noqotiyo haddaynu golaha noqoto baynu kaga shaqayn lahaynba wax laynugu daray faa'iido buuxdaynu haynaa aynu hawsheenna sii labanlaabno hawsha aynu qaranka u hayno shaqaale ahaan aad baad u mahadsantiin dhammaantiin xaqiiqatan si fiican baan u faa'iidnay cilmi badanna maanta waanu helnay waxaananu ballan qaadaynaa shaqada aanu haynay inaanu sii laba jibaari doono hawshii aanu golaha u haynayna inay intii iyo inkan badanba maanta aanu ka qaban doono lala jaan qaadi doono baarlamaanada caalamka ee adduunka haddaanu shaqaalaha golaha guurtida nahay aad baad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh